السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين أصحابتي في عنتي ما أنت قصدا أيام أنا نوشكي أنا مجعي وعايشة وحنا ترى لا تنقشدت سنة فمل كان أيام أنا قصدا نوشكي ويقول عضي أنا يا حد أي خلق أنا كان قصدا نوشكي صباحا قصدا وحكي بالله نصاصيدا أنا بس كفوشهم أيام حاربين أطقه أي هو يدي ولا شيء يعني حبيرتي أي ربنا أطقه markii habeertay ayaan guriga ku qaraacay habeertay waxay tiraahday alla ma Caysha soo dhawo gabadheeda Caysha aad ayaan kugu xiisay gudaha soo gal gabadheeda Caysha marka gudaha soo galay safarkii ayaan ugu soo sheekeeyay habeertay ayaa igu tiraahday abtiga u tag abtiga ayaa maanta dhan ku sugayay oo maanta aad ay ku sugayay oo wuxuu ku sugayay xaafadda kale aniga intaas markaa maqla ayaan dhahay hayo waa yahay wixii tiraahday guriga markaa ka soo baxay waan fikiray oo waxa iraahday gurigii hore ayaa uu tagaysaa markii dambe ayaan go'aansanaa u tago markii asaa soo baxay waxa is soo dhaafnay gabar aniga aad igu ekeed laakiin aniga ma siin ahmed waxa siiyay wada abtiga sa ugu tagi lahaa abtiga markaa u tagay abtiga safarkii ayaa san ugu soo sheekeeyay wuxuu yiraahday uu qoslay markaas uu yiraahday abti waxa soo iska caadi safarka waa la soo maraa oo waa la soo jabaa abtiga cabaar ayaa soo sheekeysanay cabaar markaa wada sheekeysanay ayaan ku yiraahday abtiga wadada waxaan ku soo arkay gabar aniga aad igu eeg markaas uu abtiga naxay wuxuu yiraahday dadku eeg adduunka way buuxaan hawaa mise ku eekeen samaha waxaan ku yiraahday abti dhinac kasta ay eekeen markaas uu yiraahday see dhinac kasta ka kartaa xageena ku soo aragtay ii sheeg laamiga miyaa ku soo aragtay ii sheeg ayuu dhahay abtiga markaas uu dhahay gabar ku eeg ayaa shalay ii timaaday adiga ayaa ku mooday ayuu dhahay waxaan ku yiraahday si igu moodi kartaa markii dambe ayuu dhahay adiga ayaa ku mooday markii dambe waxaan ku yiraahday agtaan sii baxaya oo waxa si aaday dhanka xaafadda waan ka soo baxay abtiga meeshiisa waxaan aaday meel beer ku taalo beerta ayaan fadhiistay markaas anoo fikiriyay waxa soo wacday hooyaday ayaa tiraahday soo dheeray gabadheeda Caysha inta ayaa kari kaalay marka guriga imaado hooyada waxay tiraahday maxaa kugu maqneed hadda ayaan kugu arkay adoo meel joogtide xagee ku maqneed aniga marka waan yaabay waxaan iraahday xagee ku maqnaan kartaa markaas ay ku dhahay hooyo aniga kuma maqneen ee waxaan jiray abtigay xaafadiisa hooyada markaas u sheegay hooyada waxay tiraahday adiga ma aan jirin maxaa beenta igu sheegaysaa gabadheedii waan ku ogaanay hooyadaaba haye beenta ii sheegin aniga waan naxay waxaan ku iraahday hooyo aniga wallahi abtiga ayaa jiray hooyada ayaa tiraahday aniga ayaa ku arkayay adigoo meeshaas moolka joogtid aniga waan yaabnaa oo waan fikiray waxaan iraahday gabadhan waa inaad soo afjartid inay aan qaflaad ku egyahay markii dambe guriga ayaa ka soo baxay waxaan soo qaraacay guri xaafadda meesha ku yaala waxaan arkay gabadhii ekeed markaa arkay waan naxay oo waan ku qaliyay waxaan ku yiraahday adiga maxaa igu eg tahay ii sheeg waxay tiraahday aniga ilaahay ayaa saa ii abuuray maxay iga rabtaa labadeen aad ayaa isku egnahay maxay tahay markaas aan ku yiraahday adiga yaa ku dhalay oo maxaa famalkay u khreebisa gabadhii waa ku qaylay markaas taaday wax yusuf wax aad ka argagaxay ayaan ku tusiyay ee soo bax markaas ayay soo kaxaysay wixii lingeysay meeshaas xafiis ku yaala aniga waxaa garan waayay xafiiskaas meesha ku yaala wixii noo geysay markaas tiraahday soo bax kala arag aniga waa yaabnaa markii xafiiska ii gelisay markaa arkay waxaas aad iyo aad ayaan u naxay saxaabay mana meesana inay saas dhacayso kaalay arkay waxay dhacay ani aad ayaan xafiiska soo galay waxaan arkay aabahay oo gabar kale la hadlaya oo sheekeysanaya nac ayuu siiyay aniga markaa inta arkay waxaan soo dhaafay gabadhii meesha marisay waxay tiraahday maxaa kugu dhacay waxaan ku yiraahday ma aqaan waxa igu dhacay tiyaa weeye waxay tiraahday aabaha iyo gabadhaas way jecel yihiin markii intaan dhahday aniga waa naxay oo waxay tiraahday aabaha warqadan u sii qaad oo xaafad u gee aniga intaas ma ka soo qaadin oo warqadii wax ka soo tagay gabadhii ayaa waxay igu tiraahday maxaa hadda soo aragtay waxaan ku yiraahday adiga waxa sidee ku ogaatay ii sheeg waxay tiraahday aniga hooyada ayaa isku darsnahay markaas daraadeed waxaan arkay asagoo gabar kale la socda saas daraadeed uma aan sheegin waxaan ka baqay inaan hooyada markaa u sheego inay xanuunsato isbitaal la dhigo ee warkaa la naxdo saas daraadeed warkaas intaasoo dhan ayaa qarinayay mana aan sheegin markaas ayaan ku yiraahday adiga inaa u sheegta ayay ahayd saacadan waxaa dhan ma dhici lahayn markaas tiraahday haa waaruun inaa u sheega ayay ahayd inay u sheega ayay ahayd sidaan dhan ma dhicin haddii kale
asxaabey aniga haddii inagu dhici lahayd maxaa samayn lahaydeen oo sidee noqon lahaydeen? Aniga markaas sidaa noqon garan waaye oo waa wareeray. Hooyaday sida uu sheegay ayaan garan lahay. Asxaabey dhanka committee hoos igu soo sheega sida hooyaday ugu sheegi lahaa arikaan. Waxaan ka baqayaa markaa hooyaday u sheego inay arikaan naxdin daraadis inay la dhimato. Asxaabey subscribe like noo saar.